halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban ku FM-yada magaalooyinka qaarkood iyo internetka oo ciwaankeegu yahay bbcsomali.com. duur wanaagsan idilkiin baa khiyaartana dhageysatay waa 4:29 abriil saacadda Afrikada Barina haatan waxay tilmaamaysaa 2 gowa wararka aan idaacadan duhurnimo idinku haynana waxa kamid ah waa sidee duruufta dadkii daadadku ku soo rogmadeen ee reer Qardho wax cuntaan iyo wax biyo nadiif ah iyo midna ma haysana biyo qaraar oo ka sababa ilmihi xataa nooga shumeen ilaahay noo gargaaray dadka tirada dadka Mareykanka ee coronavirus ku dhacay oo milyan qof gaadhay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland oo sheegay inuu diyaar u yahay inuu wada hadal la galo xukuumadda federaalka ee Soomaaliya wararkii ciyaaraha inta dheer soo saareyaasha barnaamijku waa Xasan Geelle iyo Ciise Xaaji Cabdulle ana Axmed Nagaashiina waan idin la socodsiinayaa Ramadaan Kariim saaxiibayaal waa tahay qodobadaas oo faahfaahsanahay inoo dambeeyana dhageystayaal bal marka hore warkii dunida iyo Cabdinaasir Saxan Saxo Cabdinaasir mahadsanid Axmed qoyska ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ku jira jawi dabaaldeg ah farxad iyo reenreen kadib markii ay lamaanihiisa Carrie Simons umushay war ay soo saareen qoyska ayaa lagu sheegay in ilmaha yari uu yahay wiil kuna dhashay isbitaal ku yaala magaalada London warkan farxadda leh ayaa u soo yeeray qoyska maalmo kadib markii Boris uu ku soo laabtay xafiiska isagoo oo muddo la ildarnaa xanuunka corona ra'iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa carabka ku adkeeyay in loo baahan yahay in la sameeyo baaritaan xeel dheer oo madax bannaan oo ku aadan asalka cudurka corona iyo sidii uu ku yimid hadalkaasi oo noqday mid ka xanaajiyay dawladda Shiinaha oo farta ay ku godan tahay wuxuu sheegay Mr Morrison in ay tahay arrin gabi ahaanba maangal ah in adduunyadu doonayso inay fahamto halka uu ka soo askumay cudurkani iyo sida uu u faafay danjiraha Shiinaha u fadhiya magaalada Canberra ayaa si duur xul ah u sheegay in Shiinaha uu qaadici doono badeecooyinka Australia waa kan ra'iisul wasaaraha Australia Scott Morrison oo arrintaas ka hadlay Australia will continue of course pursue what is a very reasonable and sensible course of action. Australia waxa ay sii wadi doontaa dabcan in ay daba taagnaato wixii macquul ah oo tallaabo macno samaynaysa ah kani waa virus la tagay nolosha 200 oo kun oo qof dunida oo dhan waxa uu xiray dhaqaalihii dunida saamaynta iyo cawaaqibkiisa waa kuwa aan caadi ahayn iminka wuxuu u muuqdaa macquul iyo mid macno samaynaya in dunidu ay doonayso qiimeyn madax bannaan oo ah sida ay arrintani u dhacday si aanu cashar uga baranno oo aan uga gaashaamano mar kale inay dhacdo and sensible that the world would want to have an independent assessment of how this all occurred so we can learn the lessons and prevent it from happening again. ra'iisul wasaaraha dalka Poland Mateusz Morawiecki ayaa sharaxay qorshe dawladdiisa dalka uga saaraysa bandowga si heer iyada oo hoteelada lagu wada in albaabada loo furi doono toddobaadka soo socda dhismayaasha laga tukaamaysto ee waaweyn ayaa iyaguna ganjeelooyinka loo ballaqi doonaa balse waxaa meel ool noqon doona dhaqankii kala fogaanshaha bulshada oo qasab ah dawladda Shiinaha ayaa sheegtay in ay dib u dhigayso furitaanka kalfadhigii baarlamaanka ee sanadlaha ahaa waxaana dib loogu dhigay ilaa dhammaadka bisha May sabab la xiriira bushiga corona tani waa astaan iyo saansaan muujinaysa in madaxda dawladda ay garowsan yihiin in cudurka la xakameeyay shirkadda diyaaradaha samaysa ee qaaradda Yurub ee Airbus ayuu macaashkeedii hoos ugu dhacay wax ku dhow 50% taas oo ay shirkadda ku tilmaamtay mid ka mid ah kambiyaalihii ugu xumaa ee suuqa diyaaradaha ku dhaca inta la xusuusan yahay Airbus ayaa lumisay lacag dhan $500 milyan oo dollar rubac bilowgii koowaad ee xisaab xirka sanadka ugu dambeyntiina mid ka mid ah jilayaasha ugu caansanaa bahda aflaamta dalka Hindiya ee Bollywoodka Irfan Khan ayaa geeriyooday isagoo 53 jir ah waxa aad loogu xasuustaa kaalintii uu ku lahaa masraxiyadda sinimooyinka Hindiya
balse waxa uu sidoo kale soo saaray aflaam caalami noqotay sida filimka Jurassic World iyo kan bakhtiyaa nasiibka ee Slumdog Millionaire. waxa uu ku dhintay isbitaal ku yaala magaalada Mumbai kadib xanuun muddo hayay maalmo un kadib markii loo soo sheegay geerida hooyadiis. warkiina waa naga intaas. aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdinaasir oo warkii duurnimo inoo marinayay ayuu kaasi hayay. dhegeystayaal u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda. waa tahay dhegeystayaal aan ku bilaabay roobabkii mahiigaanada ahaa ee daadadka culus ku soo rogay magaalada Qardho ayaa khasaare naf iyo maalba sababay. dadkii guryahoodii daadadku qaaday ee magaalada ku barakacay qaarkood ayaa waxay haatan ku jiraan iskuulada. haddaba dadka barakacay waxaa ka mid ah Maryan Muuse Yuusuf oo iga warantay sida duruuftoodu ay haatan tahay. markaan la joogo waxaan ku suganahay iskool masaarida baan ku sugannahay. wax cunto iyo biyo nadiifa midna ma haysataan? wax cunto iyo wax biyo nadiifa iyo midna ma haysano. biyo qaraar oo kaasababa ilmihii xataa nooga shumeen. ilaahay ha noo gargaareen. imise carruuraad wadataa adigu? waxaan nahay 3 ilmood iyo 3 qof oo waaweyn baa hadda meesha ku joognaa. ka u yari waxa weeye 8 bilood bay jirtaan. qoysas kale oo aad meesha iskuulka ku wada jirtaan ma jiraan? haa waa jiraan. waa ilaa inteen leeg baad u malaynaysaa dadka iskuulka ku jira? adiga dhowr qol bay ku jiraan. dhowr qol wareegga magaaladana waa jiraan. meeshaan joogana waa ku jiraan. magaalada dhanna waa dadka waa ay dad badan baa wax gaareen. taa waa lagu leeday. cunto male, maxaa biyo fiican male, gogol male, waxba ayagoo dhan waxaa la tagay roobkii. ilaa haatan wax gurmada oo magaalada soo gaadhay oo aad maqasheen ama idinka idinku soo gaadhay halkaad joogtaan ma jira? maya weli ma hayno wax naga soo gaaray hay-ado iyo midla weli wax gurmadi wax nagama soo gaarin. dadkii dhintay cid ehelkaagii ma ku jirtay adiga? aniga ehelka haddeer waxba garan maayo oo laakiin annagiyaaba iska naxsanayno hafanayo ilmihii naga hafteeno alaabtii naga wada lumtay. xataa gurigii sabarloogadiisi waa naga lumtay. xataa meel walba alaabtii oo dhan shay kama haysano. bal markii daadku idin soo galay iyo sidii aad uga badbaadeen, sideed uga badbaadeen? maa la idinka soo qabtay mise idinkaa ka baxay? wiilka oo waxa weeye suu noo soo galay asagaa kuu sheegay. halo annagoo guriga ku jirna ma garanaysaa daadkii hal marna soo galay. annaga waxaa mooday marka wax yaraa mooday gabadhaa ii sheegtay waxay tiri wareed biyahana na soo galay. markaasaan dhahay iskoomba qaaday naga xaqda cabaariilka baxdayna waxaan arkay biyihii oo bartaa ay maraayo ma garanaysa oo buuxsamayaan. markaasaa xaruurtii ku bood kan ku bood yaa birqidaa meesha kaga soo baxay. albaabka markaa imid baan dadka u qayliyey marka waa soo jebiyey ma garanaysaa. aniga kale barkeygii bay maraayaan. xaruurtii dee waa la qaayaanba. labada xaruur baan saan u qabtay ilmaamadii wixii baa isku soo qaaday. kuwaasi waxay ahaayeen Maryan Muuse Yuusuf iyo wiil ay dhashay oo iga waramayay duruufta ay haatan ku jiraan iyo sidii ay uga badbaadeen daadadkii Qardho ku soo rugmaday. dhanka kale waxaa socda dadaalo loogu gurmanayo dadka reer Qardho ee masiibadu ku habsatay. Maxamed Cali Nuur Juba oo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa halka ay dadaaladaasi marayaan uga waramay Axmed Cawil Jaamac oo Garowe kula kulmay. bismillahi raxmaani raxiim. waxaa hadda aan bixin karnaa keliya warbixin oo kooban kaasoo mataqaanaa si preliminary ah si mataqaana hordhac ah loo sameeyey aan ahayn actualkii rasmiga ah balse qiyaasta hantida ku baaba'day guryaha markaan ka hadalno guryaha dumay ayaa waxay gaarahayaan 2,600 oo u dhiganta 20% guryaha meesha ka dumay ama dhaawacyo ka gaaray dadka deegaanka. ganacsiga haddaan usoo laabano dhinaca ganacsiga deegaanka waxyaalaha gaaray waxaa ka mid ah in ganacsiga burburay dhammaan agabkii ganacsi dadku ay ku haysteen waxaana gaarayaan 1,024 ganacsi iyadoo ay warbixinta aan ka helno dowladda hoose ay la mid tahay 80% inuu burburay gebi ahaan ganacsigii magaalada. halka xoolaha nool ay ku mataqaanaa basbeeleen waa xoolaha ariga iyo neefafka geela iyo meesha waxaa ku baaba'ay 1,100 oo neef. dhinaca jidadka oo deegaanka ama degmada gudaheeda waxaa burburay 7
magaalada gudaheeda. waayahay marka agaasima dadkan aad sheegteen oo 2,000 kor u dhaafaya guryahooda ay dumeen hadda ma banaanka ayay joogaan? dabcan dadkaas waxay dulsaar ku yihiin dadka deegaanka iyo qaraabadooda ayay u tegeen. dadna waxay degan yihiin iskuulaadkii maadaama iskuulaad tahay iskuulaadkii magaalada ayaa hadda ay degan yihiin. marka waxaad iskugu geyseen meelihii iskoolada ahaa? iskuulaadka waa degay dadka qeybo kamid ah waxa iskuulaadka ayay degeen qaybana dadkooda qaraabada ah oo magaalada ku nool ama degnaaba oo iyagu awal badbaaday ay dulsaar ku yihiin. qaybtoodana waxay dhex degan yihiin guryihii burburay oo dhaawaca fudud amase gaaray ayay ku dhex nool yihiin. marka qaarna banaanka ayay jiifaan. marka waa nooc walba ayay leeyihiin dadku. marka dad dhaawacmay miyaa jira oo derbiyadii soo dimay iyo biyihii iyo ay waxyeeleeyeen? dabcan ha isbitaalkii kuwaas yaalan waa la dabiibahayaa. waxaa kaloo jiray ceelal magaalada gudaheeda iyaguna waxyaala soo gaadhay oo ceelashii dadkii biyaha ay ka cadahayeen. dhinaca suuliyaasha iyo ka waran laftigooda ma dhici xanuun inay ka dhashaan? waa dhacday dee mar meel biyo ka yimid oo daad kusoo furmay barkadihii iyo suuliyadii waxyaalo badan ay gaarsiiyeen. guryahaas ayay ku jiraan dhaawacyadaas guryaha gaaray ayay qayb ka yihiin. maxamuud cali nuur juba agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland ayuu kaasi ha u waramayey axmed cawiil. qaar ka mid a dhegeystayaasha b b c da ayaa aragtidooda iyaguna haddaba ka soo dhiibtay mashaqadaasi ka dhacday qardho. waxaana ka mid a maxamed cawiil axmed oo jooga isla magaalada qardho. waxa uu leeyahay xaaladda iyo duruufaha ay wajahayaan bulshada ku hanti beeshay daadadka kusoo rogmaday qardho waa mid u baahan ka damqasho. waxaanan aad ugu bogaadinayaa bulshada puntland iyo tan soomaaliyeed ee isu xilqaamay qoysaska danyarta oo daadadku ka qaadeen dad iyo dunyaba waxay haysteen. muhiima buu yidhi in aad looga taxadaro dooxooyinka si khatar dambe aanay u dhicin. saxardiid xaashi ardaale oo jooga magaalada boorama ayaa isaguna wuxuu leeyahay waan ka xumahay runtii duruufaha nololeed ee ay ku jiraan dadkii ku barakacay daadadkii ku fatahay magaalada qardho. waxaanan bulshada soomaalida ugu baaqayaa inay u gurmadaan walaalahooda qardho ee ay ku habsatay masiibadaasi. qaar ka mid a dhegeystayaasha b b c da ay ahaayeen. halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee b b c da. b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waa tahay bal wararkii soomaalidaynu weli ku jirnaayee dhegaystayaal. madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo maanta dib ugu laabtay magaalada Kismaayo isaga iyo xubno ka mid ah siyaasiyiintii isaga ay iskaga soo horjeedeen ee dhowaantan kula heshiiyey magaalada Nairobi ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu wadahadal la galo dowladda federaalka oo si weyn u diiday inay aqoonsato doorashadii isaga dib loogu doortay inuu noqdo madaxweynaha Jubbaland sanadkii hore. wariyaha b b c da Ibrahim Maxamed Aadan oo haatan khadka toos ugu jira ayaa faahfaahinta Ibrahim. axmed saaka ayay dib ugu laabteen Kismaayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ay weheliyaan Cabdirashiid Xidig iyo Sheekh Daahir oo ka mid ahaa qolyaha isbedel doonka ah ee kasoo horjeeday doorashadiisii sanadkii hore dib loogu doortay inuu noqdo madaxweynaha Jubbaland. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe markii uu ku laabtay magaalada Kismaayo waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay in laga wada hadlo khilaafka u dhaxeeya isaga iyo dowladda federaalka. wuxuu sheegay inay Jubbaland diyaar u tahay waqti walba in wada hadal lagu xaliyo waxyaabaha lagu kala aragti duwan yahay, isla markaana dowladda federaalku ay qaadato dowrkeeda la xiriira isku haynta dadka iyo sidii si wada jir ah loogu wajihi lahaa qorshayaasha hortabinta leh. mar walba heshiis baan diyaarunahay iyo wada hadal. dowladda federaalkii maxaa garata mas-uuliyadda ay leedahay saaran. sideedaba haddii la yidhaha laysla guriyo nina meel ma gaadhay. waxaan diyaarunahay wada hadal goob walba iyo meel walba inaan wada hadallo oo qof walba uu garto waajibaadka sharci uu siinayo lana isku ixtiraamo. taasaa asala. haddii laakiin ay noqoto maanta waxbaa layska sheegi waxaa laga yaabaa in laga hadlo nimanka soo heshiiyey waxay aada u arkeen meelo badan lagu qoray qoys bay yihiin meel bay soo Jubbaland cidda mucaaradka ahayd ee joogtay ee nala joogtay ee deganayd ee mucaaradka ahayd ee cid walba aqoonsanayd intaan hadda heshiinaba inta kalena inta iyaga ka dambeeya wakiilka ka haya dowladda federaalkii waxaan leeyahay ha qaadato roolka ay ku leedahay ee sharcigu siinayo ee waalidnimo ha u hoggaansanto inay isku daydo waddankan isku wadis buubay. maanta Soomaaliya xaalad adag bay ku jirtaa mar adag bay sii maraysaa. doorashooyinka iyo waxa la gelaya iyo siyaasadahaas oo dhan waa wax u baahan in gacanta la isqabsado laga wada shaqeeyo. annagu diyaar baan leeyahay waan soo dhaweynaynaa. waxaan leenahay dowladdu ha timaado miiska wada hadalka, ha timaado in la wada xaajoodo, ha timaado qof waliba xaqa uu leeyahay inuu helo.
kaasi waxa uu ahaa axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha jubbaland oo ka hadlayay sida uu diyaarka ugu yahay in uu wadaxaajood la galo xukuumadda dhexe ee federaalk ee soomaaliya ibrahim soo jeedinta axmed madoobe ama heshiiskii isaga iyo siyaasiyiintii qudhiisa ka soo horjeeday kenya ku dhex maray ilaa haatan ma ka hadashay xukuumadda federaalkii axmedow tan iyo markii heshiiskaasi ay gaareen xubno ka mid a isbedel doonka iyo madaxweynaha jubbaland magaalada nairobi 23 bishan abril aynu ku jirno ilaa hadda wax wara lagama hayo dowladda oo ku aadan go-aankeeda welise dowladdu waxay ku adkaysanaysaa go-aankeedii hore ee ahaa in aanay aqoonsan doorashadii sanadkii hore aakhirkiisii axmed maxamed islaam axmed madoobe loogu doortay madaxweynaha jubbaland laakiin aragti ka duwan waxaa qaba bulshada caalamka oo shalay war-saxaafadeed ay soo saareen ku bogaadiyey jubbaland dadaal kadib heshiisiineed ee la sameeyey iyagoo ugu baaqay dhinacyada oo dhan in lagu saleeyo heshiiskii 23 abriil nairobi lagu gaaray in laga sii ambaqaado dib u heshiisiinta jubbaland sidoo kale waxay bulshada caalamku ku baaqeen in dowladda dhexe iyo dowladda jubbaland ama dowlad goboleedka jubbaland ay wada hadal bilaabaan waxaana lagu bogaadiyey jubbaland sida ay diyaarka ugu tahay in ay dowladda dhexe la hadasho sidoo kale waxaa loogu baaqay dhinacyada oo dhan in ay dib u heshiisiinta iyo wada shaqaynta ay ka wada qayb qaataan axmed aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi waxau ahaa wariyaha b b c da ibraahim maxamed aadan oo warkaasi inoo faahfaahinayay dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b c da bal haatanna aynu eegno wararkii caalamka tirada dadka uu ku dhacay coronavirus ee dalka maraykanka ayaa haatan gaadhay 1 milyan oo qof waxaa sidoo kale uu fayrasku ku sii fidayaa qaaradda tan afrika sida ay sheegtay xarunta ka hortagga xakamaynta cudurrada iyo xakamaynta iyo kahortagga aan idhaahda cudurrada ee qaaradda afrika waxaa la xaqiijiyey in qaaradda tirada dadka uu ku dhacay coronavirus ay tahay 335,566 qof 10,000 iyo dheeraad qofna ay ka bogsadeen halka 1,500 oo qofna ay u dhinteen wararkii ugu dambeeyay b b c du arrintaasi ka qortay waxaa inoo hayaa farax lamaane maraykanku wuxuu iminka madaxa kala baxay 1 milyan oo qof tirada dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus iyadoo tirada dhimashada ay ku sii dhowdahay 60,000 waxaana ay dhaafeen baa la leeyahay tiradii maraykanka uga dhimatay dagaalkii Vietnam sida ay muujinayso tirin ay samaysay wakaaladda wararka ee Reuters muddo 18 maalmood ah ayaa kiisasku ay sii laba jibaarmeen waxaana ay noqdeen 3 meelood oo meel kiisaska dunida oo dhan marka la isku daro boqolkiiba 30 kiisaska ayaa waxaa laga soo sheegay gobolka New York oo ah halka cudurka xudunta u ah halka gobolada New Jersey, Massachusetts, California iyo Pennsylvania ay ku soo xigaan Dr. John Schwartzberg waa professor cudurrada faafa ka dhiga jaamacadda California ee Berkeley marka aad ka fikirto 1 milyan oo qof ayay aad ugu adag tahay aadanaha inay runta fahmaan intee qof ayay waaye aragnimo u tahay waxay u muuqataa tiro badan sababtoo ah way badan tahay oo runtii waa boqolkiiba wax yar oo ka mid a tirada dhabta ah ee dadka qaba cudurka waxay noqon kartaa 10 jeer tiradaas waxay noqon kartaa 50 jeer tiradaas waxaa jirta xitaa daraasad dhowaan laga sameeyey aagga baaya ee ku yaala California oo sheegaysa inay noqon karto 80 jeer tiradaas marka waxaynu ka hadlaynaa waa wax aad u xun haddii ay tahay 1 milyan ama 80 milyan oo qof waa dad ku jira xaalad aad u xun qaaradda afrikana waddanka South Africa waxa uu diiwaan geliyay 5,000 oo kiis oo cudurka coronavirus ah iyo 93 dhimasho wasiirka caafimaadka ee waddankaas Zweli Mkhise waxa uu sheegay in muddo 24 saacadood gudahooda ay tirada ku darsantay 203 qof oo cudurka qaaday dawladdu waxa ay sheegtay in khatarta cudurka ay sii socon doonto 6 ilaa 8 bilood iyadoo lagu wado in halka ugu sarreysa ay gaarto bisha September Suudaanna madaxweynihii hore Umar Hassan al-Bashir ayaa xabsi karantiil la geliyay kadib markii maxbuus kale oo ay isla xirnaayeen oo ka mid ah xisbul xaakimkii hore ee waddanka cudurka laga helay Kenyana waxa ay sii kordhinaysaa muraaqibeynta ay shacabka ku hayso iyadoo waddanka ay ku sii dabayar yihiin waxyaabaha loo adeegsado baaritaanka cudurka iyo qalabka la isaga ilaaliyo waddanka Ugandana madaxweyne Museveni waxa uu ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo loogu talagalay dareewalada kaxeeya gawaarida waaweyn ee taraagiyada ah ee waddanka soo galaya tallaabooyinkaas waxaa ka mid ah inaan loo ogolaan doonin inay qaadaan rakaab iyo in habeen ka badan ay ku baryaan ama ku hoydaan 12 goobood oo loo asteeyey ka qaybgal barnaamijyada laanta af Soomaaliga ee BBC oo noogu soo dir fikradaada ama aragtidaadu waxa ay tahay text message telefoonka nambarkiisu yahay 4477862000 kadib waxa ay kula tahay
BBC Somali. waa tay war haatanna soo gaadhayna dhegaystayaal waxa uu sheegayaa in ay xaaladdu degan tahay magaalada Trabulus ee dalka Libnaan oo shalay toole ay rabshado ku dhex mareen milatariga iyo dad mudaharaadayay. dadka mudaharaadayay waxay ka cabanayeen qiimaha maciishada oo aad hoos ugu dhacday maadaama oo ay qiimo beeshay lacagtii liirada ee dalkaasi. iskoorimadyadaasi shalay toole waxaa ku dhintay qof ilaa haatanna xaaladdu way degantahay inkastoo ay warfidiyaan ku tilmaamayaan in aanay ahayn mid cagad adag ku taagan oo laysku halayn karo oo la odhan karayo xaaladii sidaas ayay ku xasishay. waa tahay dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga b b c da bal haatanna baafintii baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha b b c da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Samiir Cabdulaahi Jaamac Samiiro. mahadsanid Caasha. baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Batuula Cali Xuseen oo joogta Dobley. waxa ay baafinaysaa Cabdi Cali Xuseen iyo Maanaay Ayu waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Hargeysa sanadii 1996. haddaba haddii ayna maqlayaan Cabdi Cali Xuseen iyo Maanaay Ayu ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Batuula Cali Xuseen iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Dobley. luul makaraan yuusuf oo joogta Garowe waxay baafinaysaa Liibaan makaraan yuusuf waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Liibiya 2018. haddaba haddii uuna maqlayo Liibaan makaraan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo luul makaraan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garowe. ceeblo Maxamed Ismaaciil oo joogta Dobley waxay baafinaysaa Cabdulaahi Maxamed Yuusuf waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen. haddaba haddii uuna maqlayo Cabdulaahi Maxamed Yuusuf ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo ceeblo Maxamed Ismaaciil iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Dobley. cumar faarax cusmaan oo jooga Garowe waxa uu baafinayaa Suleekh faarax cusmaan waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Kenya 2017. haddaba haddii ayna maqlayso Suleekho faarax cusmaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo cumar faarax iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garowe. burhaan dhaqane Maxamed oo jooga Dobley waxa uu baafinayaa Maxamed dhaqane Maxamed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalkani Kenya sanadii 1997. haddaba haddii uuna maqlayo Maxamed dhaqane Maxamed ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo burhaan dhaqane Maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Dobley. cabdirasaaq saalax jaamac oo jooga Garowe waxa uu baafinayaa Astur saalax jaamac waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Itoobiya 2017. haddaba haddii ayna maqlayso Astur saalax ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo cabdirasaaq saalax iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garowe. maxamed cali jaamac oo jooga Afmadow waxa uu baafinayaa Yuusuf cali jaamac waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen. haddaba haddii uuna maqlayo Yuusuf cali jaamac ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo maxamed cali jaamac iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Afmadow. suldaan maxamuud yuusuf oo jooga Garowe waxa uu baafinayaa Caasho Maxamuud Yuusuf waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Ingiriiska 2017. haddaba haddii ayna maqlayso Caasho Maxamuud ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Suldaan Maxamuud iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garowe. Nasra Ibraahim Guhaad oo joogta Baardheere waxay baafinaysaa Ibraahim Guhaad Cabdi waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Kuwait sanadii 2016. haddaba haddii uuna maqlayo Ibraahim Guhaad Cabdi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Nasra Ibraahim Guhaad iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheere. cabdulaahi cusmaan askar oo jooga Garowe waxa uu baafinayaa Cabdulle Cusmaan askar waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Jigjiga 2017. haddaba haddii uuna maqlayo Cabdulle Cusmaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Cabdulaahi Cusmaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garowe. Sahra Mataan Cali oo joogta Baardheere waxay baafinaysaa Mataan Cali Siyaad waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Malaysia sanadii 2014. haddaba haddii uuna maqlayo Mataan Cali Siyaad ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Zahra Mataan Cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheere. Cambe Jaamac Nugaal oo jooga Garowe waxa uu baafinayaa Cabdinuur Jaamac Nugaal waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Goday 2018. haddaba haddii uuna maqlayo
cabdinuur jaamac ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo cambo jaamac iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay goday safiya maasi cilmi oo joogto baardheer waxay baafinaysaa siid muuse cilmi waxaa ugu wardambeysay isaga oo ku sugan suuriya sanadii 2016 haddaba haddii uuna maqlayo siid muuse cilmi amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo safiya muuse cilmi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere warsame ciidiid dhicisow oo jooga garow waxa uu baafinayaa xuseen ciidiid dhicisow waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan talyaaniga 2015 haddaba haddii uuna maqlayo xuseen ciidiid amaba jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo warsame ciidiid iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garowe shukri cali xasan oo joogta muqdisho waxay baafinaysaa dadka kale ah saciid dhuxulow jimcaale abshir axmed dhuxulow waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan soomaaliya sanadii 2010 haddaba haddii ayna maqlayaan amabay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo shukri cali xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay muqdisho yaasmiin abuukar cali oo joogto garowe waxay baafinaysaa saytuun abuukar cali waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka ingiriiska 2018 haddaba haddii ayna maqlayso saytuun abuukar amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo yaasmiin abuukar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garowe safiyo farxaan sheekh maxamuud oo joogta baardheere waxay baafinaysaa dadka kale ah sahro farxaan sheekh maxamuud iyo faadumo farxaan sheekh maxamuud waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan australia haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo safiyo farxaan sheekh maxamuud iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere taliso axmed nuur oo joogto garow waxay baafinaysaa canab axmed nuur waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka ingiriiska 2015 haddaba haddii ayna maqlayso canab axmed amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo taliso axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garowe xaawo jimcaale cali oo joogta baardheere waxay baafinaysaa jimcaale cali cabdulaahi waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan yemen sanadii 2006 haddaba haddii uuna maqlayo jimcaale cali cabdulaahi amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo xaawo jimcaale cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere riiqiya maxamed barre oo joogto dhobley waxay baafinaysaa farxaan axmed sheekh waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan jabuuti 2008 haddaba haddii uuna maqlayo farxaan axmed sheekh amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo riiqiya maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dhobley nuurto maxamuud ibraahim oo joogta baardheere waxay baafinaysaa cabdi ibraahim cusmaan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan suudaan sanadii 2005 haddaba haddii uuna maqlayo cabdi ibraahim cusmaan amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo nuurto maxamuud ibraahim iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere binta cumar cilmi oo joogto afmadow waxay baafinaysaa maxamed cabdi dhuubow waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan nairobi 2004 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed cabdi dhuubow amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo binti cumar cilmi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay afmadow aamino sheekh mahad oo joogta baardheere waxay baafinaysaa dadka kale ah naciimo sheekh mahad iyo firdowso sheekh mahad waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan koonfur africa sanadii 2013 haddaba haddii ayna maqlayaan amabay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo aamino sheekh mahad iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere deeqo cabdi ibraahim oo joogto dhobley waxay baafinaysaa maxamed xirsi koysame waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan nairobi haddaba haddii uuna maqlayo maxamed amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo deeqo cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay dhobley xabiibo cabdulaahi xasan oo joogta baardheere waxay baafinaysaa faadumo xasan cumar waxaa ugu wardambeysay sanadii 2004 haddaba haddii ayna maqlayso faadumo xasan cumar amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo xabiibo cabdulaahi xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay baardheere baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay macdar cabdulaahi cumar oo joogta afmadow waxay baafinaysaa axmed xasan cabdilaahi waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan
hargeysa 2011 haddaba haddii uuna maqlayo axmed xasan amaba jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo macdar cabdilaahi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Dhobley baafintina maanta waa naga inta aad iyo aad bay u mahadsan yihiin caashe iyo samiiro inala socodsiinaya barnaamijkii baafinta isagaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacaddii duhurnimo waxay noo ballanaa haddii allaha awoodda lihiidmo 5 galabnimo inta ka horeysase waa dhammaantay oo dhammaantiin idin leh sidaas iyo nabadgelyo